dambeyn ciidamada deegaanka Yaaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa fasaxay gawaaridii ugu badnaa oo markaasi xamuul ah kuwaasi oo ku safrayay wadada xiriirisa Walaweyn iyo sidoo kale Baydhabo. Ciidamadan ayaa la sheegay in markii horeba aysan dadka shacabka dhibaato u geysanaynin, laakiin maamulka Koonfur Galbeed ayaa gawaaridan waxay ku xanibeen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose iyaga oo markaas ujeedo gooni ka lahaa. hase yeeshee dadka deegaanka Yaaqbari Weyne ayaa fahmay ujeedada maamulka Koonfur Galbeed oo markaasi ka lahaa gawaaridaasi uu ku xanibay degmada Walaweyn ee gobolkaasi. hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegay in marnaba aysan dhibaato u ogoleyn dadka rayidka ah ee ku safraya wadada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Yaaqbari Weyne ee gobolkaasi. xamuulka aad u jeedeen gawaaridan ayaa haatan ku safraya wadada xiriirisa deegaanka Yaaqbari Weyne iyo sidoo kale ilaa Baydhabo, waxaana markaasi dadka deegaanka ay sheegeen in marnaba aysan raali ka ahayn in la dhibaateeyo dadka deegaanka ee ku safraya wadadaasi. gawaaridan haatan ku safraya degmada Yaaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay bilooyin ku xanibnaayeen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo maamulka Koonfur Galbeed ay ku xanibeen iyaga oo markaasi ujeedooyin gooni ka lahaa. maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegeen in markaasi isbaara ay dhigteen dadka ku dhaqan deegaanka Yaaqbari Weyne, hase yeeshee dadka deegaanka ayaa beeniyey, waxaana maamulka Koonfur Galbeed ujeedadiisa ka lahaa in markaasi dadka deegaanka u dhaliil ujeediyo. si kastaba ha ahaatee gawaaridan haatan ku safraya wadada Walaweyn xiriirisa ee markaasi tagta Baydhabo ayaa wax dhibaato aan la kulmin, iyadoo dadka deegaanka ay si wanaagsan u wanaajiyeen dadka ku safraya wadadaasi. ujeedada ugu muhiimsan ee maamulka Koonfur Galbeed uu ku leeyahay duulaanka uu markaasi ku qaaday dadka ku dhaqan Yaaqbari Weyne ayaa waxay tahay in la xiro suuqa weyn ee ku yaala degmadaasi, iyadoona dadka deegaanka ay arrintaasi si weyn ugu soo horjeesteen. waxaana markaasi la muujinayaa kacdoon ka dhanaa dadka deegaanka, inkastoo dadka deegaanka ay iska difaaceen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee duulaanka ku qaaday degmada Yaaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose. gawaaridan ayaa ku safraya wadada xiriirisa Walaweyn iyo sidoo kale Baydhabo, waxayna dadka deegaanka ay sheegeen inaysan raali ka ahayn inay dhibaateeyaan dadka ku safraya wadadaasi, iyadoona markaasi dhaliisha loo jeedinaya ay ku tilmaameen waxba kama jiraan. maamulka Koonfur Galbeed oo isku dayay inay gacanta ku dhigaan degmada Yaaqbari Weyne ayaa u suurtagali weyday, iyadoona saacadihii lasoo dhaafay ciidamo aad u tiro badan lagu soo daabulay degmada Walaweyn ee gobolkaasi, kuwaasi oo la doonaya inay duulaan ku qaadaan dadka ku dhaqan degmada Yaaqbari Weyne ee gobolkaasi.